مدن المروين أنا ku hadlaya magaca gabdhihii iyo wiilashii yaraahday hawsha inoo soo abaabulay magacooda waxaan aad idinku mahadinayaa ka soo qaybgalkan aad sida sharafta uga soo qabteen uga soo qaybgasheen uga soo ajiibteen xafladda tan aynu haddaynu nahay communityada ku nool areada tan Virginia iyo Maryland iyo DC inta waa la israaciyay aynu isugu nimid inaynu maanta aynu ku garab istaagno ama ku taageerno ciidamada Soomaaliyeed oo kala duwan ha ahaadaan xagga maxaayad koonfurta gobolada dhexe ama xagga Puntland oo runtii usbuuciyada tan hawlo dardar geliyay xagga difaaca dalkii ayaynu baaliduhu mahadcelinayaa anigoo marka magaceena ku hadlay sidoo kale waxaan aad ugu mahadinaynaa oo aanu hambalyo u jeedinaynaa madaxda Soomaaliyeed oo haatan baraarugtay oo hawsha tan u kacday oo haatan wadankii dhaartii ay u galeen inay wadanka difaacaan akhiiran u istaagay iyo shacbiga Soomaaliyeed oo u kala harin say u garab istaagaan ciidamadooda waxaan islahaa dagaalkan balaayada ah oo lagu jiro xagee ka gashaan baan horta islahaa anigu qof baan ahayo markaad daawato waxyaabaha ka socda iyo dhibaatada iyo dhallinyarada maaragtay ku dhimanaysa ama ku dhaawacmaysa runtii maaragtay waxayna tustay colaad zaa'id ah oo loo qabo dadkan Puntland iyo dalkan waaba lagu soo duulay waa ognahay marka waxaan rabaa inaan dadka forumkan loo sameeyay si gaar ah runtii ugu mahadceliyo sababtoo ah ma aha inaan u nimaano kaliya inaan isdhegaysano laakiin waa inaynu kharashkana bixinaa taageernaa ciidamada u ducaynaa isla markaasna aan hubinaa maaragtay in wixii hadda aan caawa bixino inay down payment tahay ee aan wadno horta intaa inaan isku guubaabino oo horta muhiimadda ugu weyn oo caawa aan u nimid intaas ahayd dadka isu kaalay keenay marka mahaddaas gaarka ahaan usoo jeedinayaa ciidamada aad baan guubaabinayaa runtii iyagu hadday maaragtay dhimasho noqoto iyo hadday dhaawac noqoto iyo wixii dhan waa u jeedaan السلام عليكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام I'm sorry وأصدق تصوير نوع إدامه واحد شورا مكانك سويستا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبرني السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal hadal badan ma jiro waxaa jira wadootihiin cid badan baa jira runtii sharafka badan rag iyo dumar mudanayaal iyo marwooyin aad baan idin salaamayaa salaan kadib waxaynu isugu nimid cid kasta way ogtahay maanta dalkeenu waad ogtahay waxaa ka socda dagaalkan baa ka socda runtii waxaa loo baahan yahay inaynu taageerno oona garab istaagno hiil iyo hoona aan usoo jeedino maxaan ku rahdaa ciidamada dagaalamaya ee geesiyiinta ee halyeeyada ah maxaan ku rahdaa ciidanka Puntland ciidanka xoogga Puntland runtii dagaal xun ayaa socda dagaal waxaa socda runtii isku waad ogtihiin dalkeen in lagu soo duulay oo ay ku soo duuleen maxaan ku rahdaa argagixiso aad u xun oo runtii cidina ina kala jeclayn sidaa daraaddeed walaalayaal waxaan jecelahay caawa aan isugu nimid inaynu si wanaagsan oo Soomaalinimo leh oo dadnimo leh oo human being leh inaynu u taageerno sababtoo ah waxa dhimanayo waa hooyooyin iyo waxa laga soo qaxiyay dhulkii waa hooyooyin yar caruur yar waa inaynu taageernaa waa inaynu hiil iyo hooba caawa aan la garab istaagnaa sababtoo ah Puntland waad ogtihiin waa hooyadii federaalka waa hooyadii maamul goboleedyada anigu dowladda way tahay markaas hayla yaabin haddaan isku dardsamo xoogaa waan xishoodaa marka walaalayaal waxaan inaga baahannahay si Soomaalinimo leh oo walaaltinimo leh oo maxaan ku rahdaa maasha Allah marka maxaan ku rahdaa si Soomaalinimo leh oo
walaaltinimada inaynu ku taageerno Puntland waa hooyadii federaalka waa hooyadii maamul goboleedyada sidaa daraaddeed waxaa weeye walaalayaal caawa in jeebka waana furnaa waa inaan jeebka aynu maxaan ku raadaa furnaa ciidanka dhimanaya waad ogtihiin waa geesiyaal waxa weeyaan ciidanka yacni maalin walba dhimanaya ood aragteen oo argagixisada la dagaalamayo waa ciidan run ahaantii geesiyaal oo halgeeya ah waxa weeye waxay u dhimanayaan oo dhiigooda u hooyaan waa hooyooyinka waa dhulkoodii hooyo waa dalkoodii caawo kalena dee caawo kale soomaalinimada hala istuso soomaalinimada loo baahan yahay waa in la istaageero wadaqabashada iyo soomaalinimada caawo kale linaga baahan yahay waxa weeye caawo kale dumarka waliba dumarka iyo ragguba caawo kale inay soo istaagaan weeye oo maxaan ku rahdaa jeebka ay huraan oo nafta u huraan oo af iyo adinba aynu ku taageerno guul iyo gobonimo intaan gafayna haddii kalaala ahaado waxaan ka faa'iidaysanayaa oon u dirayaa hambalyo iyo dhiirigelin iyo garab istaagba aan u muujinaya af iyo adinba madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waxaan kaloo u dirayaa oo guul iyo gobonimo iyo si geesinimada ay u soo hoyiyeen maxaan ku rahdaa ii sheeg ay u soo hoyiyeen guulo badan oo la taaban karo ad aragteen ciidanka daraawiishta Puntland runtii dalkeena waxaa kusoo duulay argagixis caalami ah dowladda Puntland uu hogaaminayo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni waxay bilaabeen abaabul mar hore bishii Oktoobar bay ahayd markii oo ay bilaabeen diyaargarowgii ciidankii markeena ku dhaqaaqeen buuraha Calmiskod oo rabaan howlgalka inay bilaabaan waxaa soo weerar runtii 12 nin oo argagixis caalami ah dhammaantood ajnabi ahaayeen siduu professorku sheegay 7 waddan oo kala duwan ay ka yimaadeen tan waxay tusinaysaa dadkii caalamkii oo dhan buu haddana ku fiirtay dalkeena in lagu soo duulay oo ajnabi kusoo duuleen taasna waxay runtii dhiirigelisay shacabweynaha iyo ciidankii oo isgarab socdo oo dagaalkaas wada galay runtiina guulo waaweyn baa laga gaaray aaga muhiim ah iyo goobo muhiim ah laga qabsaday sida Baridhidhin Timirshe iyo Turma Saaradwaan wiilal badanna runtii way ku shahiideen dagaalkaas meeshan waxaa rabaa inaa ugu faa'iidaysto ilaaha u naxariisto intii dhimatay intii dhaawacanteena ilaahay ku gaday waxaan rabaa inaan ii sheego dagaalkan aniga nin ciid baan ahay sargaal baan ahay intii ugu dhib badnayd baa dhiman waxaa weeye intii soke oo fudud waa hadda inta la galay intaasoo wiilna way naga dhaawacmeen intaasoo khasaaro wayna soo gaartay laakiin dagaal haddii la galo mar loo wajahaysto marna khasaar lama dhacayso ciidankeenaan ku kalsoona wiilashiina Soomaaliyeed wiilashiinaan daraawiishta Puntland iyo ciidamada kala duwan heerarka kala duwan ku kalsoonaada guul ama geeri way ka xirtiri doonaan insha Allah taala argagixisada caalamiga dalkeena kusoo duulay waxaan rabaa inaan nagu booriyo runtiina bogaadino garab istaag ama muujisaan الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمانتين هذه المرومة هنضغي أضياشي جلاليادي يقبله سؤال أولي حفلة وبروفيسور ميسو وظهر هي بروفيسور كسير شيء يقول لي روحيها معلم جامعة بلد الصومالية الوالدية بهؤلاء الواقع دينك يسكون كي الله جامعة الله هذه أيضا ما سنتهين شرفوا بين وقت هنا كسر يقلوا حفلتنا بروح للبدن وأنا جعلان لها سيدة الله نصوغ يقل السفرة عليها وشيء مركو الله رئيسا وحانا باينا هنبريايو madaxweynaha iyo dowladda Puntland iyo shacabka Puntland iyo ciidanka Puntland hawsha adag oo ay istaageen runtii Axmed baan ka sheekaysanay dagaalkaasi dagaal sahlan maaha
waana bilow dagaal waanu dheeraanaya sidaan idiin muuqata marka hawl sahlan oo iska fudud oo usbuuc kusoo dhammaanaysa inaan nahay waanu nahay